subax wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba wararkeennii subaxnimo inaad ka daawataan janaalkeena youtube-ka sirta wararka waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 25 Febraayo 2023 wararkeennana saaki qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qaybka wararkii ugu dambeeyay qasaaraha dagaalkii cuslaa ee Laascaanood ka soconaya iyo Somaliland oo mar kale isku dayaysa inay qabsato magaalada Laascaanood dagaalkii waadka oo halkaasi ka soconaya iyo sidoo kale gurmad ciidan oo xoogan oo xalay soo gaaray Laascaanood faahfaahin xoog ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay Laascaanood ayaan kula wadaagi doonaa wararkeena kale qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qaybka dawladda Mareykanka oo sheegtay in lala xisaabtami doono cid kasta oo ku lug yeelata dagaalka Laascaanood iyo xasuuqa ka soconaya Mareykanka oo markan soo saaray fariin toos oo hanjabaad oo ku socota madaxweyne Muuse Biixi oo ku soo gudbin doona faahfaahinta maxaa ka ogtahay safarka qarsoon ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo ku jooga dalka Imaaraadka Carabta madaxweyne Xasan oo in ka badan 4 maalmood magaalada Dubai ku sugan safarkan oo dawladdu qarisay xogii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa iyo kulamada Dubai ka soconaya ku soo gudbin doonaa waxa kale oo saaxiibayaal wararkeena qaybka ah IGAD oo shaacisay xaalad adag ay soo wajahayaan dad badan oo Soomaaliyeed qaasatan kuwa ka barakacay dagaalka Laascaanood ka soconaya iyo dawladda iyo Al-Shabaab oo mar kale dagaal culus ku dhaxmaraya qaybo ka mid ah gobolkaasi Hiiraan Galgaduud oo ay dagaal ay ka dhacayaan askarkiyana qaraxya la beegsaday kuwa kale la leeyahay qodobadaasi kuwa kale ayaan ku faahfaahin doonaa 15 daqiiqo ee foodan ugu soo haysto ilaa raali ka noqdo calaamada gududan ee ku muuqata subscribe noo dhigam balaalkana taaban ugu sabir waxay ka dhigan tahay inaa qayb ka noqoto daawadayaasheena sida maalinlaha ah ugu xiran janaalkeena youtube-ka sirta wararka subax wanaagsan soo dhawaada daawadayaal aan ku bilaabay wararkii ugu dambeeyay xaaladda Laascaanood dagaalka Laascaanood ka soconaya ayaa u muuqda inuu noqday kii ugu qasaaraha badnaa waxaan saaki si guud u soo koobi doonaa wax walba oo ku saabsan xaaladda Laascaanood qasaaraha ka dhashay dagaalkan 3 toddobaad oo xiriira ka soconaya halkaasi iyo ciidanka Somaliland oo mar kale isku dayay inay rabaan inay qabsadaan magaalada Laascaanood ugu yaraan 96 qof ayaa ku dhimatay in ka badan ilaa iyo 500 oo qof ayaa ku dhaawacantay tan markuu bilaabay isku horimaadkan ee dagaalkan u dhaxeeyay ciidanka Somaliland iyo kuwa deegaanka ee ka soconaya magaalada Laascaanood sida uu xaqiijiyay agaasimaha isbitaalka waxayna haynaa dhimasho gaaraysa 96 qof halka 560 qof ay ku dhaawacmeen sida uu xusay Axmed Maxamed Xasan marka laga soo tago xogtan oo agaasimaha uu siiyay wakaaladda wararka AFP maxaa saaki uu sabtiga ka jira xaaladda Laascaanood markale waxay wajahaysaa xaaladii waadka ciidanka Somaliland ayaa 3 maalin ugu dambeysay waxay isku dayeen inay qabsadaan magaalada duulaankii ugu cuslaa ay soo qaadeen ciidanka Somaliland laakiin haddana intaba umaysan u suurtagelin qabsashada Laascaanood faahfaahinta iyo xogahan helaya xaqiijinaya in dagaal 3 jiha ah oo militariga Somaliland ay soo qaadeen oo ay rabeen inay ku qabsadaan qaybo ka mid ah Laascaanood ayaan ilaa hadda aan shaqeyn dhinaca kale xog aan helaya xaqiijinaya in ciidamo badan oo gurmad ah oo ka baxay deegaano ka mid ah Puntland ay ku biireen dagaalka ciidanka jabhadda ACC ee deegaanka ka dagaalamaya Laascaanood ayaa helaya taageero aan qarsoonin oo aad u xoogan oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan oo ugu horeysa Puntland iyo xubno dawladda ku metela ee deegaankaasi ka soo jeeda Garajaamac Garaad Cali oo hogaamiye beeleed caan ah ayaa arbacadii toddobaadkan sheegay inay dhinteen 150 qof halkaas inkastoo uu dhaawac ku sheegay ilaa 500 oo kale tani dagaalka markuu qarxay si kasba hatay bilii ugu dambeeyay waxa cirka isku shareeray xiisada siyaasadeed ay waliba sidoo kale rabshadaha sababay dhimashadii dhaawaca qaramada midoobay ayaa toddobaad ka hor sheegtay in ka badan ilaa 185,000 oo qof oo reer Laascaanood inay ka barakaceen magaalada tani markii rabshaduhu ay bilowdeen dadka barakacay sida lagu xusay qaramada midoobay warbixinteeda waxay ku sheegtay inay u badan yihiin haweenka iyo caruurta oo lagu qiyaasay 89% dadka ka barakacay Laascaanood sida lagu xusay warbixinta ka soo baxay xafiiska bini'aadanimada ee qaramada midoobay badi dadka ka barakacay Laascaanood waxa la sheegay in hadda inay ka talaabeen xadka Soomaaliya Ethiopia iyo aadeen halkaas oo nolol ahaan ay macin bideen marka la eego dagaalka Laascaanood 3 toddobaad oo xiriira ka soconaya Somaliland ayaa isku dayaysa in magaaladaasi mar kale gacanteeda ku soo celiso
oo awood military ay isticmaasho dhammaan isku dayada ciidanka Somaliland ee qabsashada Laascaanood ayaa u muuqata mid aan sii shaqeyn karin maadaama ciidanka deegaanka ee jabhadda ACC ay helayaan taageero xooggan oo iska difaacayaan ciidanka Somaliland inkastoo ciidanka Somaliland lagu eedeeyo kaliya duqeyn aan loo meeldayn inay ku garaacdo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhinaca kale aan ku raaciyo warbixintan ee Mareykanka ayaa goordhow shaaciyay inay la xisaabtami doonaan cid walba oo mas'uul ka ah ama ku lug yeelata xasuuqa Laascaanood ka soconaya dowladda Mareykanka ayaa shaacisay in la xisaabtami doono kuwa mas'uulka ka ah xasuuqa dadka shacabka ee lagu laayay magaalada Laascaanood 3 toddobaad ee dagaalka uu ka soconaya halkaasi dagaalka u dhaxeeya ciidanka Somaliland iyo waliba kuwa shacabka magaalada ee ka soo horjeeda joogitaanka ciidanka ay wuxuu galay 3 toddobaad ilaa haddana waxa la xaqiijiyay dhimashada in ku dhow 96 qof in ka badan 500 oo dad ayaana ku dhaawacantay sida warbixinta lagu hayo dowladda Mareykanka ayaana si cad u sheegtay in la xisaabtami doono cid walba oo ku lug yeelata xasuuqa dadka rayidka iyo duqeynta Laascaanood wajahaysa dowladda Mareykanka waxay cambaaraynaysaa sii socoshada weerarada aan loo meeldayn iyo rabshadaha iyo xasuuqa dadka shacabka ee reer Laascaanood isla markaan dowladda Mareykanka waxay aad ka xuntahay inay barakacaan in ka badan 185,000 oo qoysas oo ka barakaceen guryahooda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska qaybta arrimaha xafiiska qaybta arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qoraalku waxa intaas lagu daray in rabshadahan waa in la joojiyaa isla markaana ay mas'uuliyadda cid ay qaadato oo la xisaabtamo maamulka Somaliland ayaa hore loogu eedeeyay inay madaafiican loo meeldayn ay ku garaacaan goobaha shacabka ee magaalada kuwaas oo dad badan oo rayid ay ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen inkastoo Somaliland ay beenisay dowladda Mareykanka waxay Somaliland ku cadaadinaysaa in ay ka dhabayso xabajoojintii kol hore ay ku dhawaaqday isla markaana hadda xal nabadeed la helaa maadaama Somaliland xabajoojin ay ku dhawaaqday laakiin sidaas ay tahay xabajoojintii wali ma shaqeyn safiirka xigeenka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa booqashada hore loo soo shaacin wuxuu ku tagay magaalada Hargeysa toddobaadkan wuxuuna la kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi asagoo kala hadlay qadiyada dagaalka Somaliland ayaa qoraal ay ka soo saartay kulanka Muuse Biixi danjire ku xigeenka ama safiir ku xigeenka Mareykanka waxay ku sheegeen in kulan muhiim ah isafgarad buuxa laga gaaray xukuumadda Somaliland ayaa hore u sheegtay dhankeeda inay diyaar u tahay wada hadallo iyo xal laga gaaro xiisadda dagaal ee Laascaanood taas oo ay ka timid cadaadis xooggan oo beesha caalamka Somaliland ay saartay madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in erga dhaqameed uu u dirayo gobolka Sool si ay loo fadhiistaan ismada reer Laascaanood walow arintaasi aysan shaqeyn Somaliland hadda waxay wajahaysaa cadaadis xoog leh oo ka imaanaya dalalka reer galbeedka Mareykanka oo kuwaas oo dhamaantoodba ku qasbaya in xabadda joojiso wada hadallada ay la gasho jabhadda ACC ee dagaalamaysa wuxuu ku soo kordhay xaaladda Laascaanoodna wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa markana aanu gudbo qodobada kale warkeena ka haray daawadayaal maxaad ka ogtahay safarka qarsoon ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu ku joogo magaalada Dubai ee dalkaas ku tagay Imaaraadka Carabta janaalkeena sirta wararka ayaa helay xog qarsoon oo la xiriira in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in ka badan 4 maalmood inuu joogo magaalada Dubai safarkan waa ay qareysay villa Soomaaliya lama faahfaahin dhinaca kale ee diblomaasiyadda ayaa sheegay xitaa in madaxweynaha Soomaaliya Dubai uu kala kulmayo saraakiil dhanka muqaabaraadka ee Israel u qaabilsan inkastoo xogtan ay tahay mid diblomaasiyad aan ilaa hadda loo xaqiijin waxaa la isweydiinaya sababta ay villa Soomaaliya u qareysay safarka qarsoon ee madaxweynuhu ku tagay Imaaraadka Carabta iyo waxa uu madaxweynuhu Imaaraadku ka qabanayo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa hadda u muuqata in galaangal toos ay rabto inay ku yeelato siyaasadda gudaha ee Soomaaliya iyo waliba in sidoo kale Imaaraadku waxa la sheegay in laga baadgoobayo bixinta dhaqaalaha askarta dowladda ugu maqan dalka Eritrea 5,200 oo jajaba oo ciidamo ah oo dowladda lagu soo tabar wadanka Eritrea ayaa hadda dowladdu u raadinaysa mushaaraad dhaqaale in la helo waxaana la sheegay in dhaqaalahaas mushaaraadkaasi waxa laga rabaaday goobaya dowladda Imaaraadka Carabta oo la rabo inay bixiso arinta ugu weyn ayaana la sheegay in madaxweynuhu kala hadlayo laakiin xogtu intaas way ka weyn tahay 4 maalmood madaxweynuhu Dubai uu joogo safarkii oo la qariyay ila wareediyana ku waramaya arrimaha muqaabaraadka Masirdoonka Israel in halkaas uu kala kulmayo ugu dambeynna askar Kenyan ayaa qarax lagu eegtay kuwana waa la laayahay
oo waa la baadigoobayaa xaaladooda marka la eego qaraxii saaka dhacay. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ciidamo ka mid ah kuwa dowladda Kenya lagula eegtay qaybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalkaas, iyadoo khasaaraha dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay. Qaraxan oo ahaa mid nooca miinada ah oo dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala eegtay baabuur ay la socdeen 4 ka mid ah ciidanka booliiska Kenya xilli ay marayeen wadada xidhiidhisa Gaarisa ilaa xeryaha qaxootiga Dadaab, sida ay sheegeen ilaa wareedyo lagu kalsoonaan karo. Warar ayaa sheegay in qaraxa kadib rasaas xooggan ay fureen ciidamada Kenya, gaar ahaan kuwa booliiska ku sugan xadka Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay qaraxan waxaa ku dhimatay ugu yaraan 2 askari halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo dhowr kale. Waxaa la leeyahay askar badan oo ciidamada Kenya oo jaani cirib halkay dhigeen la raadinayo la leeyahay oo laga baqayo inay afduubteen kooxda Al-Shabaab. General Said oo ah taliyaha ciidanka booliiska gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa xaqiijiyay jiritaanka warkan wuxuuna ku eedeeyay kooxda Al-Shabaab. Taliyaha ayaa intaas ku daray in haatan ay wadaan howlgal baaritaan ah isla markaana ay baadigoobayaan oo la rabo in 2 ka mid ah askarta Kenya la leeyahay. Wuxuuna sheegay in qarax lala beegsaday ay ku dhinteen dhowr saraakiil oo askarta Kenya oo xerada Dadaab iyo Gaarisa qaabilsanaan. Weerarkan ayaa ku soo aaday iyadoo maalmo ka hor qarax uu ka dhacay wadadan oo kale lagula dilay 3 ka mid ah askarta Kenya. Waxa kale oo ka horeysay qarax kale oo ka dhacay duleedka Gaarisa kaasoo lagu dilay 4 qof oo ka mid ah askarta Kenya ay ku jiraan injineero maamulayay dhismaha wado loo dhisay wadankaasi Kenya. Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa ka fulisa gudaha wadankaasi Kenya. Dhinaca kale dagaal ayaa ka soconaya gobolkaasi Galgaduud. Faafahinta dagaalkan xarar dheer dowladkeeda ka soconaya duqeymo ayaa sidoo kale dhacaya. Warkeena galab ayaan ku faafahin doonaa. Nabadgelyo.